ciidamada qalabka sida waxay ka yimaadeen dadweynaha Soomaaliyeed ay ka soo dhaxbaxeen waxayna naftooda iyo dhiigooda iyo wax walba ay u qooreen inay dalkooda daaficiisa ay diyaar u noqdaan marka mas'uuliyiinteena dambe waxaan rajaynayaa in sida xildhibaan Yuusuf uu noo xusuustay inay u soo xasuustaan ciidamada qalabka sida waxaan ugu mahadcelinaynaa mar labaad Yuusuf abaalka uu soo galay ciidanka iyo xusuusta uu ku sameeyay oo ah inuu maanta qadadii neef geelan u keenay aqabkii kale lagu cunayay uu soo raaciyay maanta oo waliba maalin jimcaha oo ah maalin nasasho isaga oo baabashay nasashadiisii una hibeeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inuu kala qayb qaato kuleelka iyo qaxarka ay ku jiraan aad u mahadsantahay xildhibaan Yuusuf waa kugu mahadnaqaynaa saraakiishayada iyo ciidanka iyaga xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 12 Abriil arinta iyada way ku xasuusanaysaa waxa waaye maanta waxaan idin soo booqday oo maalin jimcaha oo fursadeyda aan shaqo ay maanta ka jimca ka tahay waxaan ku soo booqday inaan ogaa dhibka iyo dhibaatada aad ku jirtiin aan arko ayaan idin soo booqday waxa waaye xoolo ma wadin laakiin macnaha waxaan dhiirigelinayaa ragga ilamada inay saas ciidamada u soo booqdaan ay dhiirigeliyaan ayaan idinkugu imid marka insha Allah taliye waxaan rabaa adigoo mahadsan inaad iga guddoonto neefkaas oo maanta qadada iyo cunkiisa ciidamadana ay u noqoto in laga dambeeyo inay ogaadaan in la ogyahay inay ogaadaan iyagana waa u mahadcelinaynaa 114 ilaahay ha ku dhowr aan leenahay dib ay ku jiraan adawgay u rogaan meel walba habeen iyo maalin u taagan yihiin marka waa ku mahadsan yihiin Allah ciidamadana